السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن دديوغا الشرفت لي إنك دقيسان يا أدون كدعالي ديسا ميل كستا أو جوكتان هالكان نقل السعوتان واستوديو هيا مقالة ميابلس هدبا مانتا وحانو خاتكا تليفونكا آنو كو ريسان دونا أفاينكا خاتمو إماراتكا عبد الرشيد ديري عبد الرشيد كسو دوو أولغا كسو دوو بسم الله الرحمن الرحيم واد السلام يا ياسين دعاء علي حراره سلام حاشر يا عبد الظاهر ورياشة قالقة كنا ودك ولكن قال عن مقالة مينيسوتا مينيابوليس عادي بعد السلام يا وحالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي عبد الرشيد وحتى هي أفينكا إماراتكا خاتمو أيامها وحصو عصبون هذا دقالو كأوجن دينا حدودكا خاتمو يو بودلان أرنتا محاد كلا سعطا أنا قلت ومن سلام يا دمانتين ياسين يو علي حراري السلام عشر يا عبد الظاهر أبي أباني السلام يا وأرنتا أيامها باوحن مقاليني دلوقتي كونتهاي مقالة بورا وضلوا gudaha gobolka Sool waxa jirta sida aan la soconaa maamulka Puntland ama maamulkan laamiga dheer Maxamuud Salaam madaxda ka yahay waxa jirta in ayamaha isku dayeen inay markay ay ka soo jeesteen dagaaladii ka soo gobolka Nugaal ka soo gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Galkacyo ay ka soo quusteen filintii ay doonayeen inay fidiyaan الموارد يسدون كفر عندما قبل كمدوك يكون جودنا يا واحد يشجعين قبل كصورة أي سلاحين كون بمانتا مامك بخاطوة يا مانتا كلام تعلمه أنت هذا المجال جرو على فيديو دوك على جارسيو نو إلا هاي دولة سول سلاحي يعني مامك خاطوة ويانظر مالك مانتا لا يسوي إنه برتارنا متاكلين dadka ay hore maamulkooda ay ku wada tirsanayeen ee maanta waxay tiraan sadaaye ay soo weeraraan ama ay soo weeraraan waayay عبد الرشيد أن سؤال كويديو إن هالك هذا الشيء سيد حدود كات شيء سان ودحيا خاتمه يو بودلان إن دبعت هذا أتكسر شيء سيد إن تديوغا رميجا هذا يشير وإن سوق سعنشرين تديوغا الصوماليين حدود ملاحين أيامها وحصو عزبون هذه دولة قبل ذي لفت جودو إما يمدي الصوماليين حدود دو سمايسو سو لفت تاسمه هادب إن تدك إن إسدحيا لا الصوماليين ما أنت لوكال سماية حدوده مجال وقت حدود أمد الصوماليين ما كان له دابني آلي مجال بوال وذاك سادرات إنه حضر كيسار كوا كي مجرد ملا ما بردرة كي أو دمعي عرض بانتي أم عرائن ورثجيله أم عرض مشرتين ملا هو شيء سوق جاره حد الرأس وارد الناس وهم كده أي آدم طالت الدجامين معها لكن سوى حلا يابله لمن كان عاد يستي ما مكبت على هذا شو صاحي إلى عيد بلادين وحي هذا يقول إلى هذا المجال ما مكبت لان وها كتريا قبل صلي سرايا عين بكتريا أو ما ممكن يكون هالكاسين كم على إيران وها ينبرع إن ما ممكن بدلان مال أسكان إليهين وقبل الخاتمة ينشرين وح الله على من والغيا ومن وشغيا ما ممكن بدلان ينشران أما نما يرى مشارع يسيان مال عقار كل ينشران واجران لكن أسكان أي كتريا عندك قبل صلي سرايا عين ما ممكن بدلان يهمشرو taasna waa cadaan adduunkan ayaa lagu jahwareerin ummadda Soomaaliyeed walaalayaal lagu wajireerin wax maanta Puntland oo shaqeynaya oo maanta wixii bari hore isku horreeyay Puntland ka shaqeynaya ma jiro waxaad arkaysaa ciidamo hor la inay soo dhoobeen magaalooyinkan buuro wadan iyo meesha hadda deegaanka ay ka sameeyaan waxa la ogeeyay maalka Faroole inuu yiri magaalada caasimadda 40 kilomitir dhinac kastaba loo fidiyo oo dhowr mar waxa lagu sheegay baarlamaanka inay geeyeen taas ay nimankii baarlamaanka ay ku gacan sayreen tii ayaa waxa dhacday wiilka wareerka uu yahay ee la faraweynaayeen oo la hadlayay kaamay warbaahinta siinayay uu yiri controlkii ku yahay magaalada Garowe waa la qaadayaa waxa la geenayaa gobolka Sool
taasi suurtagal maaha shacbiga dhulbaantana yeeli maayo meel kasta arrinta bariga dibadda waa ka midaysan yihiin ismadan gobolada Soomaaliya waxaan ka codsanayaa inay ku taageeraan kabitaanka shacbiga waayahay cabdirashiidow waxa jooga waa isimadii oo laftigoodu waawaan ka wada sidii ummadda dhulka wada degan waawaan looga bixin lahaa miyaysan kula habboonayn intii la siyaasadayn lahaa oo labada maamul meesha isku hordii lahaayeen in loo daayo cuqaasha iyo waxgaradka siday ummadda dhiigooda u kala badbaadiso Soomaaliyeed inaad horta waxa ismada waxa la yaab leh ismada Soomaaliya waxay ismadu yihiin shacbigooda isma ku yihiin waxaad arkaysaa for example ismadii shalay tagay magaalada Buurawal qaarkood inay ka yimaadeen magaalada Hargeysa qaarkood ay ka yimaadeen magaalada Garowe qaarkood ay khaatimo ahaayeen saddex isma meesha tagay nimankan meesha Buurawal ku shaqeeyay maamulka Puntland ka yimidna haddaan ku soo kala qaado oo waliba hoos kugu dhigo ninka la yiraahdo Saadiq Abshir Garaad 18 sano uu Puntland xildhibaan ka ahaa waa markii ugu horeysay carada dhulbaanta u yimaado mar uu tira himid mooyaan markii ugu horeysay soo gaara Buurawal iyo ninka la yiraahdo Beende oo khiyaamay shacbigii dhulbaanta uu madaxda u ahaa uu doortay uu la galay meesha la yiraahdo Puntland taas lama oran karo waa mas'uuliyiin ka socota maamulka Puntland isla khaatimo ama isla dhulbaantana waxaan ka codsanaynaa maadaama ismada Ciise Maxamed meesha ay marayn maanta waxa meesha isku haysta waxa weeye Ciise Maxamed iyo dhulbaanta Ciise Maxamed oo doonay dhulbaab oo ay doonayaan dhulkii khaatimo inay boobaan waayahay cabdirashiidow afayeenka baa tahay khaatimo ee jooga imaaraadka su'aashan aan ku weydiinaynaa waxay tahay Somaliland waa sheegatay xuduudkaas siyaasiyiintoodii iyo dhaqankoodii intuba iyaga laftigoodu waa ka jawaabeen dhibaatada halka ka jirta su'aasha aan ku weydiinayaa waxay tahay maxay tahay dhibaatada aad ka sheeganaysaan Puntland aydan ka sheekanayn Somaliland laftigeedu waa sheeganaysaa dhulka anaana ka taliya bay leedahay maxay tahay marka dhibka ka jira Puntland aanay ka jirin Somaliland inaad horta wax Somaliland yaado khaatimo aqoonsan tahay ma jirto meeshu waa beelaha ay saaqay maanta ka hadlayaan dhulbaanta iyo majeerteen ama beelaha darsi maamulka walaalaha jiray ay ka hadlayaan horta iyaga waxa keenay meesha waa fuduul waana u gaartay maanta ninkaas maamulka Somaliland sheeganaya inay maanta ka faa'iideystaan dadkaas deegaanka isku haysta ama ku heshiiyeen ama ku isku dileeyeen horta ma aaminsan iyagu inay soo dhex galaan meesha wax yaalana ma jiro taa ay maanta ka hadlaysaa waxa weeye maadaama ay caasimada haystaan oo caasimada maamulkooda ka haysto nimankii Puntland maanta meesha ay caasimada xoreyn lahaayeen ama ay 8 bilood ku marayso ay ka hadli waayeen oo iyagii maanta ka faa'iideysanayaan maadaama caasimada ay joogaan nimankan beeshan dhexe ay joogaan magaalada Laascaanood iyo laamaha dheer ay joogaan oo Garowe u jirta 40 kiiloomitir ay u jiraan waa gartay inay maanta yiraahdaan annaga ka talina nimankaas iska hadlay Hargeysa jooga ama wasiirka wafaafinta ama inay waracadaha ama ninkii saxaafada soo fadhiisan jiray Faysal Warabaate wax ka qoseeya ma jiraan arrimahaas wax soo geeyna waa gartay ayaan daray inay maanta ka hadlaan iyagu ay soo fargeliyaan arrimaha dakhliga ee naga dhaxeeya reeraha dalka waayahay afayeen Cabdi Rashiid Diriye waxaan ku weydiinaynaa su'aasha kale oo ah madaxweyne ku-xigeenku waa beel ka soo jeeda beesha aad sheegaysid oo khaatimo kana ah Puntland ciidamo ayuu keenay nabad ayuu ku dhawaaqay in laga wada hadlo meesha in oday isugu yimaadeen marka maxaa dhibka jira uu hadda yahay oo khaatimo ay iyadu leedahay dhulkan waa lagu qaadanaya cadeena ay haysaa waxa la yiri waxa la dhigayaa saldhig control laakiin ilaa hadda dad wax ka dhistay iyo dad soo duulay intuba midna ma jiraan waxa weeye sidaadii maanta khaatimo ay tiraado Garowe gudihiisa ama meel loo jirto markii uu tirmaa ka dhisanayna control ama aan ka sameeyna checkpoint ka sameeyna bal madaxweyne ku-xigeenka sheegaysa iyo maamulkaas sheegaysa bal ka soo qaad maxay oran lahaayeen maanta haddii maanta guri deegaameen laga bilaabo maamulka khaatimo ka bilaabo meel Garowe u jirto ama xuduudda Garowe ama gobolka laga xukumo dema ogolaan lahayn baan u malaynaya waxay andaraa maanta inaan ogolaano in xuduudda gobolka Sool ay maanta ciidamo ka tirsan maamulka Puntland
ama madaxweyne ku-xigeen ha wato ama wasiirka shantiga ha wato ama wasiirka arrimaha gudaha ha watee inay maanta soo farageliyeen inay maanta yidhaahdaan raalli ka noqdaan yidhahdaan lagu gorgortamo taasi mid laga dhegeysanaya maaha nimanka Puntland ama madaxweyne ku-xigeenaha ama wasiirka arrimaha gudaha ninka la yidhaahdo Axmed Garaasha ahaatee meel ay maanta xukumaan ama meel ay ka tariyaan midnatan ma jirto waya afayaan su'aasha kale aan ku weydiiyo haddiiba ay Puntland dib u noqoto ma umalaynaysan in laftigeeda aad xuduudaha aad ka ilaalin kartaan Somaliland haddii aad tihiin khaatumo ciidan ku filan oo difaaci kara dhulka ma jira ee khaatumo ahaan inaadaro waxa weeye xuduudeeda nimanka la yiraahdo Somaliland ama beesha dhexe annaka dagaal baa naga dhaxeeya itaal meel kasta la geeyo waxa heshiis iyo wax wada hadal la intay dhulka ku jiraan yeeli mayno haddana waxaan kula jirnaa dagaal baan kula jirnaa waxaan u baaqaynaa dhulka inay ka baxaan waa diideen waa inaan wax kasta oo ku sameynay nimankii aan doonaynay dagaalka naga dhaxeeyay waxaba naga soo hoos maray kuwa iyaga xagga dambe naga qabtay tooreyda oo dhulka intiisii dambe intiisii kala harsanaa maanta la waa dhisayna anagu haddaan meesha dhisanayna kuwaasaaba nooga daran laakiin nimanka Soomaaliya la yidhaahdo daawada xabad baa naga dhexaysa xabadii baa naga dhexaysa intay dhulka ku jiraan waayahay kolley waxa tahay afayeenka imaaraadka warbaahintuna maanta waxay sheegaysay in Cali Khaliif laftiisa madaxweynaha khaatumo ay yiraahdeen baarlamaanka khaatumo waymo Cali soo fadhiista oo su'aalo lagu weydiiya qaarna waxay sheegayaan mooshin ka dhana in ay baarlamaanka khaatumo ay ka keeneen madaxweynaha arinta wax ma ka ogtay wax ma ka jiraan mise idaacadaha laftigoodu lama hubo inaadaro wakaasi wada ku teena weeye horta baarlamaanka sharci uu leeyahay inuu madaxweynaha su'aalo weydiiyo in la wareysto in la xisaabtamo xaq bay u leeyihiin waa maamul ay ummadii raalli ka tahay waa madaxweyne ummadii ay dooratay waxa weeye haddii maamulka baarlamaanka ay soo jeediyaan in madaxweynaha ay la xisaabtamaan soo gala fariisiyaan sida madaxweynayaasha kale ama baarlamaanka kale ee ka dhisan maamulka goboleedada lama yihiin laakiin ilaa hadda annagu waxaanu ka haynaa gudihii oo ay kula warbaahinta qaarkeed baan maanta ku aragnay arrimahaas mooyaane anigu u malayn maayo maanta waqti maanta laga xisaabtamo ama waqti maanta dagaalaba laga jiraayo baarlamaanka nimanka doonaya hadday maanta la xisaabtamaanna waa caadi waa la xisaabtami karaa su'aalaha waa la doon kara madaxweynaha waayahay aan ku weydiiyo su'aasha kale xildhibaanada federaalka ugu jira khaatumo waxay isku soo degeen Garowe waxay ka soo bilaabeen socod dhinaca iyo hadda waxa la sheegayaa dhulka khaatumo inay aadeen ula jeedadooda weyn oo xilligan ku soo aadisay inay dhulkii iyo dadkii afarta sano ugu dambeysay ay maanta ku soo noqdaan ujeedadaasu maxay tahay afayeen inaadero horta xildhibaanada shanta ay soo gaaray wadanka qaarkood xiriir baan la sameeyay intaan imaan wadanka ay imaan waxayna yiraahdeen waxaan wadanka u imaanaynaa inaan xaaladda lagu sugan yahay wadanka aan ogaano xaaladda meedeyntii maamulka khaatumo iyo maakhir aan ogaano balantooda waxay ahayd inay magaalada Garowe ayaan gelin oo ay meel Sumjifriyo ay ka soo degaan isla markaana ay u gudbaan meel gobolada Soolsara iyo Cayn waxa weeye nimanka halka marayaan haddii Ilaahay soo haday qaar waxa ku jira maalin kaliya aan maamulka khaatumo ama aradu baanta ama aan dowladda federaalka arrimaheeda aan ka shaqeynay hadday maanta leeyihiin waxaan uga shaqeynaa danaha dhulbaanta ama dowladda federaalka ayaa ma soo dirtay oo aan arrimahan kurgelid ama baaritaan baan ku sameynaa maamulka khaatumo ama gobolada sare Sanaag iyo Cayn waan soo dhaweynaa haddii ay doonayaan laakiin kursi kororsi ama campaign ay doonayaan 2016 ay ku jiraan taas waa nin waqtigiisa laakiin Cabdirashiidow in xilliga kan oo xilligoodiiba uu dhamaaday gobaabsina uu yahay waxa ka hadhana ay bila tahay maxay xilliga kan u faa'iideyn karaan ama khaatumo ha ahaato ama maakhir ha ahaato afartii sano ugu dambeysay magaalada Xamar bay fadhiyeen arrimaha kamay hadlin waxa ka socda ama dhibka ka jira ama maamulkaba intaba mana taageerin kamayna hadlin maanta oo u harsan tahay 2 bilood maxay faa'iido u keeni karaan shacab weynaha ama dawlad goboleedyada halka ku jira والله نيجي وينادر وارنتاس nimanka maamulka nimankaas xildhibaanada baarlamaanka horta waxa ay aan daraa nimankan xildhibaanada baarlamaanka aan leenahay waa
muddo 4 bilood waxay joogeen magaalada Muqdisho waxaana laga yaabaa 4 ka mid ah inay hadii goor ka hadli jireen danaha gobolada Soomaaliya saaxiib ay dhibaatada lagu hayo inay ka hadli jireen laakiin waxaa jira 4 xabs iska joogay oo aan kala warhayn mushaarkooda dalka qaadan jiray national la keeni jiray dowladda hadda la ka qayb gali jiray maanta hadii ay ilaahay soo hadeeyay oo ay yiraahdaan bal labada bilood ay yahay bal dadkii tusay inaad u maraydeen dad wala arkada waxay sameeyaan laakiin hadii ay maanta isku dayaan inay garowe iyo khaatimo iyo dadka meel ka mid ah tagaan oo ay ka gareeyaan هرجلون بيسودوا هرجلون بينقايان ودمبيت لكن ما بيلاقين وايا شاشة وجودن بس أن كودينا يا أفيان واحد هاي دجاج بدن أو كسر كذا قبل كأشياء ست سول يسناك يعين كان مدا خاتمه أيها حوجا كبي ديدن دولة على فيان كتهاي خاتمه إيمان يهوشي لو إجمالي إلى أي وقت جاي دارتي أنا سبعين هرمر أدوف ورا بدن مركا لا يقول دينا أبنيجا أدقو أفيانا هان حد كام سنتين هذا هو حوالي هرتو كمان كل ده من نشره وهذا وإذا دولة الفدرال كهيدا أنت سو عالم كدخلها هي وبدنا يجودي وبدنا يعدموا وبدنا شغلان بقولوا في طلابين لا طبعا كريلا هذا قادم ما مكخاتم ومدن سنة ما فرتنا كدوات بود اسمع لكن كبي سنة وحلنا وربلد عملنا هاي معارض لما هو قف كبي سنة خاتمه والوحدة ما كان خاتمه لا كان SSC لا كان قاربة SSC دينا قاربة ما تخاتمه دينا قاربة أنت خاتمه وركورة قاتين ما تبنت لا سمال لا برضه بكلا شقية وحوينك معارض ولا وانقرة لكن لو كاجي الله يستو يعد يعلن كاجي الله يستو يومد هذه كلا دم تعلم يجرد هذا نفسه أو يلا نلاقي شو الله هذا جرد نفسه ولا كاركود ولا حاجة إن شاء الله أنا سمال لا بكشقية كاركودنا وحكشقية أنا كلا ويسكفديهم يربطها وحملنا هاي أنا قادمنا ما مكخاتمه وأنا شقينا أمد يعني تاجنا هاي نجمة أمد الصومالية بنو تاجنا هاي عد الله عدي واحدة ما كان يسخاتمنا هاتي برهانك بالله ويا هاي أن عبد الرشيد سؤال وجودن بيسان كويدينيو بريهن وحسي حاول يو سعودي ان مامل ان امي مامل وداغان سولي سناج يو ولبا عين in maamul halka weyn laga sameeyo oo dawladda federaalka ahina ay ku deerto iyo adduunkuba arrimahan ayamahan laba maqlayn sida u aragtaa arrintan socota ee shacab weynaha gobolka Sool iyo Cayn laftigoodu ay u riyaaqeen soo dhaweeyeen in la isku daro maamulna loo sameeyo 2016 kana ay ka qayb qaataan ummadda Soomaaliyeed la jaan qaadaan sida u aragtaa arrinta iyada هذا وحوي نعرفها مامور سويت مامور كماخري مامور خاتم السيد عادي بنو سودوين وايو لبلا مامور ما لبلا دغمو waxa arkaysa hadiyo goor in meelaka Soomaaliya kamid ah maamulada iyaga xaq marka laga ka baaxad weyn ka shacbiyad badan ka badan way waxyaalo badan oo haday tahay dabiici ah ay ka badan yihiin waxaan ogonahay ama aan taageerayna in maamul loo sameeyo hana ka baxan maamul sameeyntooda hadiyo goor wax arkaysa labada degmo ama labada gobol ama labada maamul inay hadiyo goor u tartamaan madaxweyne ku xigeenka Puntland ama ra'iisul baarlamaanka Puntland waxaan leeyahay labada shacbi waxaan leenahay ana caawan kaanu fursadan ka faa'iideysanaya وردورت مدحونا أدلين iyo gudoomiye baarlamaan أدلين iyo wasiir أدلين doorta waa madax banaantiin inta aan martida ku noqonaysan karo ama ka tiin maamulka Puntland hadii goor leeyahay ama hargeysa ama garoonka doorta waxa leeyahay hadii ku sharafaad ku leeyahay doorta waayahay aad iyo aad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa afayeenka Rashiid Diiriye oo khadka telefoonka si toos ah uga jiray Imaaraadka waxa wareysanayay anigoo ah